taxliisha ama biyaha oo quraanka lagu akhriyo waxa muddo baaritaan ku hayay Professor Masuru Omoto oo dhashay dalka Japan kuna takhasusay culumta fiisigiska wuxuuna qiray in quraanku uu dhalan rugo qaab dhismeedka macdanta biyaha una rugo qaab dhismeed ka weyn maskaxda bini'aadanka haddaba waxa la xaqiijiyay qofka caadista cabitaanka biyaha lagu akhriyay suuratul yaasiin iyo faatixada waxay u dhigantaa qof kun daawo calooshiisa ay galeen waxayna daawo ka tahay cudurrada hurdo la'aanta depressionka buufiska waswaaska iyo welwelka oo inta badan ka yimaada cabsi nafsaaniya waxa kale ay ka hortagaan oo daawo ka yihiin guud ahaan cudurrada intooda badan haddaba walaalaha Soomaaliyeed maxaa idin diiday inaad samaysataan xilli walba habeen iyo maalinba biyaha oo aad quraanka ku akhrisataan si aad uga hortagtaan cudurrada